Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada afar talo oo aynu u hayno dadka hurdadu ay ka soo daahdo. Talooyinkan raac si aad dhaqso u seexato markaad gogashaada tagto. Haddii aad ka mid tahay dadka aysan hurdadu dhaqso ka soo dhicin marka ay seexdaan, waxaan ku haynaa talooyin aad ku anfacaya. Haddii aad arrimahan samayso, waxaad awoodaysaa in aad durba seexato marka aad sariirtaada tagto ama firaashkaaga. Qaar ka mid ah talooyinkan waxaa laga yaabaa inaad horeyba u ogeyd, laakiin aad fududaysan jirtay. Isku day inaad dhammaantood samayso inta aad kala qabsanayso helitaanka degdega ah ee hurdada qolka mugdiga ah. Xaqiiji in qolka aad seexanayso uu yahay mid gebi ahaanba mugdi ah oo aan lahayn iftiin marka aad gogashaada tagto. Taasi micnaheedu waa inaad damiso dhammaan nalalka ku shidan. Tallaabadan waxay kaa caawinaysaa in hurdadaadu ay noqoto mid xasiloon oo aan la qasin, waayo inta badan dadku waxa ay ku soo kacaan iftiinka ama ma seexdaan marka ay u shidan yahay nalka. 30 daqiiqo oo jimicsi ah. Xeelad kale oo aad muhiim u ah si hurdadaadu ay u sahlanaato waa in qofku uu sameeyo jimicsi sahlan ugu yaraan muddo 30 daqiiqo ah. Laakiin jimicsigan ha samayn marka ugu dambeysa ee aad seexanayso ama aad gogashaada tagayso. Sababtoo ah taasi waxa ay meesha ka saaraysaa inaad durba seexato maadaama ay unugyada jirkaaga iyo xubnahaagu dhammaan ay shaqaynayaan. Sidaa darteed, jimicsiga xilligiisa ka dhig subaxa hore ama shaqada kadib. Maalin walba markaasi hubaal waxaa la qabsanaya jirkaaga, isla markaasina si fudud ayaad u seexan doontaa. Wax akhrin. Taladan dadka qaar waxay u qaadan karaan mid cajiib ah, laakiin qaarna aad ayay u fahansan yihiin waxtarkeeda. Marka aad buug soo qabsato xilliga aad seexanayso, gaar ahaan buug aadan sheekadiisa ama mowduuciisa xiiso u qabin, waxaa hubaal ah inaad durbadiiba ku caajisayso oo ay hurdo ku qabanayso. Tan beddelkeeda, dadka qaar waxa ay hurdada ka hor daartaan filim aysan danaynaynin, sidaas ayayna ku seexdaan. Qabays diiran, biyo qandaca ku qubayso ka hor intaadan gogasha tegin. Arrintani waxay kaa caawinaysaa in jirkaagu uu xasilo marka aad biyo diiran ku soo qubaysato, maadaama murqahaagu ay kala furfurmayaan. Haddii ay suurtagal tahay, qabayska kadib marso kareemka jirka ama saliid si aad u dareento istareex. Markaas kadibna waa hubaal in waxa kaliya ee niyadaada ku soo dhacaya ay noqonayso in aad dhaqso seexato. Ha ka wahsan qabayska, sababtoo ah waxa uu xitaa kaa caawinayaa in aad ka nasato hawl maalmeedka aad ku mashquulsanayd maalintaada oo dhan. Iska ilaali arrimahan marka aad hurdada raadinayso. Ha samayn wada sheekaysiga fariin qoraaleedka ah marka aad damacsan tahay inaad seexato ama aad gogashaada jiifto, waayo iftiinka telefoonka waxa uu kaa hor istaagayaa hurdada. Hawlo kale ha gelin marka aad soo qubaysato kadib. Hana isku dayin inaad ka fikirto waxyaabaha aad samaynayso maalinta xigta, waayo waxaa laga yaabaa in aad ka walwasho oo hurdaduna ay sidaasi kaaga sii foga. Ha cunin waxyaabaha sokorta ku badan tahay xilliga hurdadaada aad isku diyaarinayso. Si guud, sokortu waxa ay u xun tahay caafimaadka, si gaarana ma habboona in aad sokor badan cunto xilliga ugu dambeeya ee aad seexanayso adigoo aan dhaqdhaqaaq kale sii samayn doonin. Ha cabbin qaxwo ama kafee marka aad damacsan tahay inaad seexato. Qaxwada waxaa ku jira maado firfircooni gelinaysa jirka oo meesha ka saaraysa hurdada. Inkastoo dadka qaar ay caadi u tahay in ay seexdaan xitaa haddii ay cabbaan kafee. Ugu dambeyn, waxaan idin rajaynayaa inaad talooyinkan ay idin anfici doonaan, sidoo kale aad la wadaagi doontaan asxaabtiina iyo qoysaskiina. Mahadsanidin.